howlgalkii duufaanta al-aqsa ee ay dagaalyahanada xamaas fuliyeen 7 Oktoobar sanadkii aynu soo dhaafnay ciidamada gumeysiga Israa'iilna ay ugu jawaabeen howlgal ay ugu magacdareen seefta birta ayaa shaaca ka qaaday in dagaalyahanada xamaas ay haystaan hubka casriga ah noocyadiisa kala duwan kuwaas oo qaarkood awood u leh in ay gaaraan caasimadda Tel Aviv iyo garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. hubkan ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaatay duulaankii 7 Oktoobar kaasoo lagu dilay in ka badan 1200 Israa'iiliyiin ah laguna soo qafaashay wax ka badan 200 oo maxaabiis ah iyo dhaawaca in ka badan 2900 oo Yuhuud ah. inkastoo marinka Gaza oo ay Xamaas ka taliso wax ka badan 10 sano isla markaasna Israa'iil ay go'doomin dhinac walba ah ku haysay haddana ururka oo tan iyo sanadkii 2006 gacanta ku hayay marinka waxa uu suurta gashay in uu samaysto soona dhoofsado isagoo adeegsanaya tanalada dhulka hoostiisa hubka noocyadiisa kala duwan waliba midka casriga ah. haddaba warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 5 hub ee ugu casrisan ee ku jira gacanta Xamaas ee nala socda ilaa dhamaadka. sidoo kale like saar muuqaalka si uu meel fog u sii gaaro. mahadsanid. magacaygu waa Bashiir Cadow. ku soo dhawaada faahfaahinta warbixintan xiisaha leh. hubka koowaad ee ku jira gacanta Xamaas waa qoriga shiishka ee meelaha fogfog wax ka toogta ee loo yaqaano Guul. guutada Isudiin al-Qassam oo ah garabka military ee Xamaas ayaa baahisay muuqaal video ah oo muujinaya howlgal uu mid ka mid ah dagaalyahanada Xamaas oo adeegsanaya qorigan uu ku tooganayo askari Israa'iili ah. intii lagu guda jiray iska horimaadyo ka dhacay bariga xerada Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza muuqaalkan ayay Xamaas ugu magac dartay waxa aan madaxyadiina ku guranayno waxaan ku samaysanay gacmaheena. kadibna xarakada ayaa soo bandhigtay qaabkii loo sameeyay qorigan halista ah. sifooyinka uu la gaarka yahay qoriga Guul waxaa ka mid ah inuu yahay qoray lagu farsameeyay gudaha marinka Gaza waxaana markii ugu horeysay ay Xamaas u isticmaashay dagaalkii 2014 ay la gashay ciidamada Israa'iil. sidoo kale qorigan wuxuu isticmaalaa rasaasta nooceedu yahay 12.7 iyo 14.5 mm wuxuuna aad uga horeeyaa qoriga Ruushka sameeyo ee loo yaqaano Dragunov oo isna ka mid ah qoryaha shiishka Soomaaliduna ay u taqaano shamshooter. waxayna aad u barteen wixii ka dambeeyay sanadkii 2007 markaasoo ciidamadii Itoobiya ay soo galeen gudaha magaalada Muqdisho. sidoo kale qoriga Guul waxaa la sheegay in uu aad uga horeeyo kan casrisan yahay kan ay samayso dowladda Austria ee loo yaqaano Ster. Guul waxaa loo arkaa mid ka mid ah qoryaha wax toogta ee ugu dheer adduunka. dhererkiisuna wuxuu ka badan yahay 1.5 mitir qiyaastii waxa uu wax ka dili karaa ugu badnaan 2 kiiloomitir marka lala barbar dhigo qoriga Ster ee Austria oo wax ka dili kara 1.5 kiiloomitir halka kan Ruushka ee shamshooterka Soomaalida u taqaanana oo wax ka dili karo 1.2 kiiloomitir taasoo ku muujinaysa in uu aad uga sareeyo labada qori. meel u jirta 1 kiiloomitir xabadda Guul waxay si fudud uga dhex dusi kartaa 2 darbi oo shub ah kadibna waxay dili kartaa bartilmaameedyada aadanaha waliba kuwa ku labisan jaakadaha rasaasta celiya. sababta qorigan loogu bixiyay magaca Guulna waxay tahay si loogu maamuuso Adnaan al-Guul oo ka mid ahaa taliyayaasha guutooyinka Isudiin al-Qassam kaasoo taliye u ahaa qaybta wax soo saarka militariga ee al-Qassam markii dambana ku shahiiday gacanta gumeysiga. Adnaan al-Guul magaciisa saxda ah waa Yaxya Maxamuud Jaabir al-Guul waxaana uu ku dhashay xerada al-Shati ee galbeedka magaalada Gaza. waxa uu dhashay bishii Juulaay 24 1958. sidoo kale waxa uu bartilmaameedka labaad ee sirdoonka gumeysiga Israa'iil ka ahaa ragga ay aad u doondoonayay waxaana ka horeeyay oo kaliya Maxamed Dayf. hubka labaad ee ku jira gacanta Xamaas waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Al-Zawari waxayna ka mid ahaayeen hubkii ay Kataib al-Qassam u adeegsatay howlgalkii duufaanta al-Aqsa. diyaaradan waxaa Xamaas u sameeyay injineer u dhashay dalka Tunisia kaasoo lagu magacaabi jiray Allah u naxariiste Maxamed Al-Zawari. wuxuu ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee Kataib al-Qassam waxaa la qaarijiyay sanadkii 2016 waxaana dilay sirdoonka Mossad. wuxuu gacantiisa ku sameeyay sanadkii 2008 soddon ka mid ah diyaaradaha Al-Zawari waxayna markii ugu horeysay goobaha dagaalka ka soo muuqatay sanadkii 2021 gaar ahaan howlgalkii ay Xamaas ugu magac dartay dagaalka Sayf al-Qudus. kadibna howlgalkii duufaanta al-Aqsa ay qayb weyn ka qaadatay. sidii aan horey u soo sheegnay sanadkii 2008 Al-Zawari waxa uu sameeyay 30 xabo oo ka mid ah diyaaradahan wuxuuna ugu magac daray Ababil. kadibna waxaa la soo saaray 3 nuuc oo ka mid ah diyaaradda Ababil kuwaasoo kale ah Ababil A oo loogu talagalay howlgallada sahanka, Ababil B oo ah nuuca fuliya weerarada iyo qaraxyada, Ababil C oo ah nuuca howlgallada ismiidaaminta fuliya.
laamaha ammaanka Israa'iilna waxay xilligaas muujiyeen cabsida ay ka qabaan suurtagalnimada in guutooyinka Al-Qassam ay helaan droniska fuliya duqeymaha cirka, iyadoo sidoo kale inay sii horumarin karaan noocyada abaabiil ay markaas shaaciyeen sirdoonka Israa'iil ayna gaarsiin karaan heer la mid ah kuwa Turkiga farsameeyo ee loo yaqaan Bayraktar. sifooyinka ay la gaarka yihiin diyaaradahan ayaa waxaa ka mid ah in loo isticmaali karo saaminta iyo weerarada. waxaa kaloo loo adeegsadaa howlgallada dagaalka tooska ah, waxayna awood u leeyihiin in lagu garaaco xarumaha iyo bartilmaameedyada si sax ah oo sarreysa. sidoo kale diyaaradan ayaa qaadi karta hub ay ka mid yihiin gantaalada ama bambooyinka yaryar. waxaa kaloo loo adeegsadaa dagaalka nafsiga ah, iyadoo la cabsi gelinayo cadowga, sida in laga soo daadiyo warqado ay ku qoran yihiin fariimo ku socda cadowga, sida aan ku aragnay dagaalka ka socda Ukraine ee u dhexeeya Ukraine iyo ciidamada Ruushka. hubka saddexaad ee ugu muhiimsan ee ku jira gacanta Kataib Al-Qassam waa gantaalka Ayash 250, kaasoo noqday walwalka ugu weyn ee soo wajahay gumeysiga Israa'iil, kana dilay boqolaal qof markii ugu horreysay ee la arko ama lagu arko fagaarayaasha dagaalka waxay ahayd sanadkii 2021, gaar ahaan howlgalkii Sayf al-Qudus. gantaalka Ayash waa gantaalka ugu ridada dheer gantaalada Xamaas. wuxuu gaari karaa meel walba oo Israa'iil ka mid ah. meelaha fogfog ee uu gaaray waxaa ka mid ah caasimada Tel Aviv, garoonka diyaaradaha Ben Gurion iyo garoonka diyaaradaha ee Ramon oo qiyaastii 220 kilomitir u jira Gaza. sidoo kale gantaalkan wuxuu ka mid yahay gantaalada ay Xamaas ku farsamaysay gudaha Gaza, waxaana laga soo ridi karaa gawaarida xamuulka dushooda iyo dhulka. wargeyska Yedicood Ahronoot oo warbixin ka qoray gantaalkan ayaa ku sifeeyey inuu yahay hubkii ugu halista badnaa ee soo gala gacanta Xamaas. sidoo kale nidaamka difaaca gumeysiga ee loo yaqaano Iron Dome ayaa awood u lahayn in uu ka hortago gantaalkan, maxaa yeelay nidaamkan waxaa loogu talagalay in uu ka hortago gantaalada ridada gaagaaban. hubka afraad ee ku jira gacanta Xamaas waa gantaalka Al-Yaasiin 105 amaba loogu yeero ugaarsadaha taangiyada Merkava. gantaalkan asalkiisu waa Ruush, laakiin injineerada wax iska caabinta ayaa ku daray farsamooyin iyaga u gaar ah. waxaana loo sameeyey markii hore in lagu burburiyo gaadiidka dagaalka, balse injineerada Xamaas waxay gaarsiiyeen heer uu burburin karo taangiyada dagaalka ee casriga ah sida taangiga Merkava oo ah astaanta ay ku faanaan warshadaha militariga gumeysiga. guutooyinka Al-Qassam waxay madfacan ugu magac dareen si ay ugu maamuusaan Sheikh Ahmed Yaasiin oo ahaa aasaasihii dhaqdhaqaaqa Xamaas sanadkii 1987, kaasoo ay Israa'iil xirtay 18 May 1989. waxaana markii ugu horreysay la soo daayay bishii Oktoobar 1997, waxayna dileen bishii Maaj 22 sanadkii 2004. gantaalkan Al-Yaasiin waxaa laga koobiyeeyey midka Ruushka uu sameeyo ee RPG-ga. markii ugu horreysay ee Xamaas adeegsatana wuxuu ahaa howlgalkii Al-Furqaan ee sanadkii 2009 ay la gashay ciidamada gumeysiga Israa'iil. sidoo kale dagaalyahanada Al-Qassam ayaa u adeegsaday howlgalkii 2014, waxayna markaas ku burburiyeen 9 taanki oo ka mid ah noocyada Merkava. gantaalka Al-Yaasiin waxa uu ka kooban yahay madax labanlaab ah oo wax burburiya. midka koowaad waxa uu dalooliyaa birta taangiga ama gaariga, kan labaadna waxa uu ku dhex qarxaa gudaha. xawaaraha gantaalka Al-Yaasiin waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 100 ilaa 500 mitir. baaxadda waxtarkiisuna waa 150 mitir. xawaaraha ugu badan ee uu jari karana ilbiriqsigii waa 300 mitir. hubka shanaad waa gantaalka Al-Qassam, waa gantaalka dhulka la galay haybadii nidaam difaaceedka Israa'iil ee Iron Dome. waana gantaal ka mid ah kuwa ridada gaagaaban, waxaana lagu farsameeyey gudaha Gaza, wuxuuna u qaybsamaa 3 nuuc oo kala ah. Qassam 1 oo la soo saaray sanadkii 2001, waxayna Xamaas ugu tala gashay in ay ku duqeyso deegaanada Israa'iiliyiinta xoogga lagu dejiyey ee Sitrot, taasoo ka dhigan in uu duqeyn karo ilaa 3 kilomitir. Qassam 2 isna waxay Xamaas soo saartay sanadkii 2002, wuxuuna gaari karaa masaafo dhan 9 ilaa 12 kilomitir. Qassam 3 oo isna la soo saaray sanadkii 2005, waxayna Xamaas ugu tala gashay in ay ku duqeyso xaafadaha magaalada Casqalaan, wuxuuna gaari karaa masaafo u dhaxaysa 15 ilaa 17 kilomitir. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintii aan uga hadlaynay 5 hub ee ku jira gacanta Xamaas ee walwalka ku riday gumeysiga Israa'iil. haddaba daawada hubkee ayaad isleedahay waa kan ugu muhiimsan ee ku jira gacanta Xamaas? aragtidaada noogu soo hagaaji qaybta commentiga. hana ka iloowin in aad muuqaalka ku sii sheer garayso baraha bulshada si uu meel fog u gaaro. mahadsanidin.